السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضية فانفورك إن شاء الله تعالى وحن رأى إنها كان إنكوسو قدبيو مقال إن شاء الله تعالى أتكم هذين دونتان أو إلهي إذن كيس سيد أنكرتين أيو مقال كان أنقن دونه مد وحبدا أتكفى إذن دونتان مقال كانوا حوايه فانفورو قوش هذا حد أي بالله ميسا إمكبدا أرضيدو waxay diiradda saaran ama ay imtixaanaadka fakriisu ku dhashaa markii imtixaankii form 4ka uu soo dhawaado ama imtixaankii sideedaad uu soo dhawaado waxaan rabaa inaan ku sheego in guushaadu ay hadda bilaabanayso waxaan rabaa ilaahay inaan muuqaalkan kula wadaago ilaa 4 qodob oo saameyn weyn ku yeesha ardayda rabta inay galaan imtixaanaadka qaranka soo dhawow haddii aan ugu cusub tahay waxaan ahay macallin cigaal qoraa youtuber ka hadla arrimaha waxbarashada iyo horumarinta shakhsiga kuna soo dhawow kanaalka horumarinta iyo baraarujinta haddii aan hore u guda galno akhyaaray qodobkeena koobaad waxa uu noqonayaa maareynta waqtiga haddii aad tahay arday isku diyaarinaya in uu imtixaan qaran galo ama inuu mid state galo waa inaad ka faa'iideysataa maareynta waqtiga inta badan ardadeenu lama fahansiiyo ayaguna ma fahansana qaabka ugu wanaagsan ay waqtigood u maareyn lahaayeen haddaba haddii aad form 4 soo gaartid micnaheedu waxa waaye in uu ka duwan yahay galaasyadii aad sanadihii hore dhiganaysay haddii sanadihii hore aad iska socon jirtay hadda waa maya markaan adiga ayaa la rabaa inaad iska gudbisid buundada wabiga adiga ayaa la rabaa in aad ka talaabtid asiga oo ku qoyn haddaba maxaa muhiim ah sideese waqtigayga aan u maareyn karaa waxyaabaha raba inaan muhiimka aan kula wadaago waxa waaye haddii aad form 4 tahay isku day in aad xilli hore seexatid wax micno ma ku samaynayso siyaasadda qasan ciyaaraha socda filimaanta TikTok ku daadid waxaasoo dhan adiga xilligan la joogo wax micno ma ku sameynaya sidaas daraaddeed isku day in aad xilli hore aad seexatid dhanka kale haddana isku day in aad xilli hore soo kacdid oo iskuulka aad soo xaadirtid xilli hore qodobka saddexaad oo maareynta waqtiga ka mid ah waxa waaye maalin kasta waa in aad waqti kooban oo cayiman aad wax akhrisa inta badan ardayda waxa laga yaabaa in usbuuc wax akhrin haddana 3 maalin isku xigta uu si fiican wax u akhriyo haddana iska daayo haddana maalin kale wax akhriyo waxa ka wanaagsan adiga oo waqti cayiman yoomiye nus saac 1 saac saacad iyo bar inta adiga aad awoodid inta jadwal u degsatid in aad joogtaysid oo aad waqtigaas aadan wax kale aad ku darin okay marka aad waqtigaaga maareynaysid waxa muhiim ah in aad leedahay jadwal wax akhris haddii aad rabtid inaad ogaatid qaabka loo samaysto jadwal wax akhris waxa jirta muuqaal aan hore u diyaariyay oo linkigiisa insha Allah taala aan kula wadaagi doono commentiga ku soo dhigi koobaad ku soo dhigi doono okay halka labaad waxa uu noqonayaa oo muhiimka ah xal u raadi maadooyinka kugu adag xal u raadi maadooyinka kugu adag sida maadada xisaabta ama physics-ka chemistry-ga maadada adiga kugu adag ka fikir qaabka u xalin lahayd waxaan rabaa inaan kuugu bishaareeyo haddii aad tahay arday form 4 ah in aan sameeyo course la yiraahdo physics plus course-kan physics plus-ka ah waxaad ku baran doontaa maadada physics-ka ee fasalka 12aad waa maado aan u diyaariyay habka aad u garanaysid ama lagu dhigo waa maado haddii ilaahay idmo aan xirfadeeda ku kalsoonahay oo haddii aad baratid course-keeda insha Allah taala uu noqon doono physics-ku mid ka mid ah maadooyinka kugu sahlan aad isuulka ka qaadatid balaaskana waxa weeye waxaan kaloo course-kan la socdo oo aan ku diyaariyay habkii aad waqtigaaga u maareyn lahayd waxaan ku diyaariyay in aad ogaatid sababaha keena in arday fara badan ay dhacaan ogow waliba arday badan oo akhriskooda aad iyo aad u fiican yahay ayaa sanad walba dhaca haddaba waa maxay xalka
iyo dhibaatooyinka iyo qaabka keena in la dhaco. waxaan kaloo koorskan kuugu diyaariyay in aad baratid ama aad samaysatid qaabka jadwal fiican oo waxtar leh aad u samaysan lahayd. insha Allah ta'ala koorskan Physics Plus waa mid ka dhigaya arday waxbarashada ku guuleysta sanadka 2025-2026. haddaba linkiga koorskan la iskaga diiwaan gelinayo hoos ayaan ku dhigi doonaa haddii aad diyaar u tahay. waan filayaa in aad ku soo biiri doonto. okay, xal u raadi marka maadooyinka adiga ku dhibaya sida xisaabta, physics oo kale oo koorskan kale ayaa iska diiwaan gelin kartaa. sidoo kale maadooyinka kale laga yaabo inay ku dhibaan adigu xal u raadi. hadday macalinka ku laabanaysid, haddaad koors iska diiwaan gelinaysid, haddaad akhriska u badinaysid, adiga xal u raadi. okay, qodobka saddexaad waxa uu noqonayaa baro farsamooyinka wax akhriska. inta badan ardaydeena marka ay rabaan inay wax akhriyaan ma garanayaan haddana habka wax akhriska. oo ardayga waxa laga yaabaa inuu buug inta iskaga soo dhago maanta dhan soo u buug u akhrinayo asagoo waxba baranin waqtigiina ka dhamaado. kooriska aan kuu soo sheegay ilaahay idinkiisa waxaan ku baran doonaa sida waqti yar oo kooban wax loo akhriyo. farsamooyinka la adeegsado marka wax la akhrinayo waxaa ka mid ah in inta aad akhriska bilaabin aad degsatid hadaf yar oo kooban 3 qodob inaad qoratid. aad tirahdid tusaale ahaan period iyo frequency, qeexitaanadooda, formulooyinkooda, SI unitkooda, 2 tusaale oo ka mid ah. intaas ayaan akhrinayaa saacada iyo barka soo socota. dabeetana markii saacada iyo barka ku dhamaato waad garanaysaa. adiga ayaa su'aal isweydiinaya in aad wixii baratay iyo in kalena halkaas ayaad ka heli doontaa. qaab kale wax loo akhriyo waxa kamid ah marka wax akhrinaysid in aad akhrisid buugga meelaha muhiimka ah, in aad akhrisid buugga meelaha casharka chapter objectives-ka ah, hadafka chapterku uu ka kooban yahay, in aad akhrisid meelaha ama qaybaha ama qeexitaanada ama meel kastoo as leedahay waa meel muhiim ah. calaa ay taxaal in aad baratid xilligan farsamooyin waa mid kuu saacidi doonta haddii ilaahay idmo in aad guul gaartid. laakiin lama rabo in aad tiraahdo waxba la akhriyay wax akhri. qodobkeena u dambeeya afraad aan rabo inaan kula wadaago waxa uu noqonayaa waa inaad yeelataa cibaado iyo caafimaad. marka laga soo tago in sanadkan aad rabtid inaad qalin jabisid, haddana noloshaada oo dhan kuma koobna qalin jabinta sanadkan. aan kula wadaago taariikh yar oo dhacday. waxaa jirta gabar dhalatay oo dhameynaysay imtixaan aad iyo aad u adag ama course aad iyo aad ay dhameynaysay. dabadeed waxay ila soo wadaagtay in muddo isbuuc ku dhow aysan wax hurdo ah ay saxan wax yar ma aha xataa aysan garanaynin wixii ay cuntay. ma kuu sheegaa wixii aan kula wadaagay? wixii aan la wadaagay aan kuu sheegaa waxaa ka mid ah markaan rabno anaga inaan imtixaan galno waa in aan 50-50 u diyaar garownaa. yacni waxaani noloshaada waa inaad kala reebtaa. bal ka waran adiga oo nafta iska qaaday oo wax hurdo iyo hoyaad ka tegay oo cibaado ka tegay, haddii imtixaanka form 4 ku dhacday ama imtixaanka aad diyaarinaysa ku dhacday, qof noocaad noqon karta. waa dhibaato. marka waa inaan 50-50 ka dhignaa. yacni waa inaan waxna baranaa nolosheennana aanan hilmaamin. caafimaadkeena waa inaan hilmaamin. waa inaan xilli hore seexanaa, waa inaan cunto caafimaad la cunaa, sidoo kale ku xirnaanshaha alle iyo cibaadada joogteynteeda ayana waa inuusan gaabis naga gelin. bal ka waran imtixaankii form 4 anagoo isku diyaarinayna haddii uu noo noqdo imtixaankii kale ee aakhirada ee aan laga soo laabanin. marka waa inaan markasta isku diyaarinaa cibaadadeena inay joogto noqoto, caafimaadkeenana aan ku dadaalno. qodobadaas waxaan rabaa haddii ilaahay inaan kusoo koobo afartooda. inta badan ardaygii isku daya in uu guul gaaro ayaa guul gaara. laakiin ardaygii weli aan baraarugsanayn, mas-uuliyadda naftiisa aan qaadin, weli asagu isku maleeya in uu yahay qof la hagahayo, qof waalidku uu leeyahay waxbarashada aad xagga aad, waxaasi adiga wax macnaa ma kuu samaynaya. qodobka kale ee muhiimka ah ee aan rabo inaan ku daro waxa weeye ardayda subaxiina iskuulka aada, harkiina intay bareefadka u kacaan xilli dambe ka yimaada oo intaas macallin uu dhageysanaya. ogow wax dhageysiga badan waa fiican yahay, laakiin wax akhriska badan ayaa ka sii fiican. waa inaad waxna dhageysataa waxna akhrisaa. soo dhawaada ilaa muuqaalka xiga
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هدي أنا مقال كان فيها شيء كعاد وقف ورالك وصنف كان إن شاء الله تعالى نسكت دياري امتحان كقرنك إن أو أصلنا سرحان أو أقعد